fadhigii koobaad ee xubnaha golaha deegaanka Garabaga ee cusub oo ay goobjoog ahayeen barasabka gobolka Sanaaga injineer Axmed Cismaan Xasan taliyaha qaybta gobolka Sanaaga maamulka sare maxkamadda gobolka Sanaaga bahda dhaqanka ee Garabaga iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo munaasabad ballaaran loogu qabtay hoolka dawladda hoose ee Garabaga sagaalka xubnood ee golaha deegaanka Garabaga ee dhawaan shacabka reer Garabaga u doorteen ayaa ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda Sanaaga xaakim jaamac Awilaadan oo mid u dhaariyay xubnaha golaha deegaanka Garabaga dhaarin kadib waxa loo gudagalay sidii ay xubnaha cusub iskaga dhex dooran lahaayeen maayirka iyo maayir ku-xigeenka way kala sharaxnaayeen maxamed cilmi maxamuud cadaad maayir axmed cabdi saleebaan maayir saal maxamed ismaaciil maayir ku-xigeen cabdullaahi saleebaan boode maayir ku-xigeen sidaasi kadib waxay tartamayaashani kala heleen codad fartaaga oo 5 ah waxaana sidaasi guushu ku raacday loona cimaamaday maayirka cusub ee degmada Garabaga eegas maayir maxamed cilmi maxamuud halka maayir ku-xigeenna loo doortay saal maxamed ismaaciil waxaana xusid mudan in maayirka iyo maayir ku-xigeenkuba ka soo baxeen xisbiga talada dalka ee kulmiye maamulka gobolka Sanaaga maamulka cusub ee Garabaga xubnaha golaha deegaanka madax dhaqameed oo dhammaantood hadalka iska daba qaatay ayaa halkaasi ka soo jeediyay weero dhaxalgal ah oo dhinacyo badan taabanaya xildhibaan inaad isku xidhnaataan maayirkii madaxweynaha la shaqeysaan si degmada horumar u gaadho dadka isku dardaarmaya maxamed cilmina waan garanayaa dawaanu weyn oo oday oo maalimyeernimadu ma cusba maalimyeerkii ka horeeyay faarax buu ahaa u dhiibay maalimyeernimadu u dhiibay caaqilo uu ahaa caaqilada waa u dheertaa marka maxamedow oday baa haday imkan odaynimada sharaf weyn baan aniga tahay inaan soo maamulayay golaha muddo 8 sano iyo dheeraada inay wixii soo maraaba ay ku dhamaanayeen si xal iyo nabadgelyo waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu maadaama anagu hadda golihii cusub aan ka mid ahay inaanu hawsha amaanu ballan qaadaynaa in hawsha hadii alla yiri aanu xilkaan mar labaad aan ku soo noqonayna inaanu si wanaagsan aanu u gudan doono gudoomiyaha cusub iyo maamulka cusubna aanu si fiican uga shaqayn doono dhamaantood aanu anagoo gamacayseysana waayo waxa weeye waxana waa wixii aanu soo qabanay waana sunnaha nidaamka dawladeed inuu qofku tartamo ama uu helo ama laga guulaysto ugu horeyn aad baan u hambalyeynaya qolada garabka la doortay anagu ka dhinaca musharaxaanba sida dardaaranka gudoomiyaha gobolka iyo hadal ku dhan yahay waad la shaqayn doonaa garbihiina aan taaganahay way ujeedada meeshaan u nimi maaha masab laakiin waa shaqo inaan deegaan ka shaqeyno inaan horumarino taasaan noqon idin ballan qaadayna midna waan jeclayno maadaama dhalinyaradii wax soo baratay degmada ku soo noqotay aan nahay hogaankana la ku dhiibo ay mudnayd laakiin taas ma dhicin laakiin si waana taagnaa doontaa hadii la ka dhigo mar labaad iyo mar saddexaad ba anigoo waliba gudoomiyaha golaanka ah inaan ku shaqeyno hawlkarnimo iyo cadaalad aanan kala sooci doonin xisbiyo iyo wixii ka dardaarmay gudoomiyuhu kelmadda dadka deeqda waa cadaalad waxaan ballan qaadayaa inaan ku maamuli doono cadaalad insha Allah bilmaahi kariim hadalkaygu ku soo gaabinaya shaqada la idmaday waxaan dadweynaha iyo ilaahayba uga ballan qaadaya inaan uga shaqeeyo sidii cadaaladi ku jirto iyo aan eexay ku jirin qabyaaladi ku jirin xisbiyeen ku jirin ayaan ballan qaadaya insha Allah bilmaahi kariim marka horta saad u ballan qaadeen inaad ilaaliyaal fiican noqotaan oo aakhiro xusuusta waanu idinku sii adkaynaynaa insha Allah waayo dunidan aynu joogno waa duni dhaxdin ah saa dambe iyo bari iyo maanta aynu ka tagaynaa marka saacadaha aynu joogno iyo maalmaha aynu joogno ayaa loo baahan yahay si dar ilaahnimo inaynu u shaqayno iyadoo wax kale qulubteena aan ku jirin ilaahay qulubteena haynagu sugo oo khayr iyo wanaag haynagu sugo xilkuna ma sahlana wax adag weeyaan yaryaraysana xilku ma laha reer Garabaga kulliba waxaan ku hadlaqayaa anigu dad isku duuban oo horumarka iyo cadaaladda ku wanaagsan baan u arkaa anigu waxaan leeyahay ummadda reer Garabaga waxaan ku amaanayaa markaan degmooyinka qiimeeyo gobolka Sanaaga hoos yimaado inay tahay degmada ugu bulshada wacan ama ugu amniga wacan ama ugu taladeedu ugu urursan tahay waxaan horta leeyahay maayirkii hore maanta fadhiyo haddana golaha deegaanka ku soo noqday
inuu ka mid noqdo degmada waan u hambalyeynaya anagu buluus ahaan anoo odaygii buluuska ku hadlaya siduu saldhigayga degmada Garadag ula shaqayn jiray golaha deegaanka cusubna waxaan leenahay maanta Garadag awalan waxa ugu horeysiisaan meel aad dhaqaajisaan doorka saldhiga buluuska magaaladu ku leeyahay ku leedihiin sidii ila bulshadu way korodhay magaaladii way korodhay daartaas insha Allah tii lagu guuleystaa ee Ilaahay idin fudaydiyo ee waajibka aad ku dhaarateen maxaan ku leeyahay sideeda ugu tan Allah idinka maanta waxaad tihiin xubno golo deegaan oo degmada Garadag u soo baxay xisbiye ma kala lihidina waxaad tihiin intii bulshada degmada Garadag soo dooratay waxaad wada adeegaysaan waxa weeye waa bulshadii xisbigii xisbiyada iyo waxa sida way noo story oo way noo sharci oo way leenahay laakiin idinku waxaad tihiin reer Garadag baati waxaad ku shaqaynaysaan wax xubno golo deegaan oo degmada Garadag u adeegaya waxaad isugu adeegaysaan waa wanaag iyo horumarka degmada in loo mudoobo taas way balanteenu ma aha in la yiraahdo hebel malaa xisaablaay ka soo jeeday dhabarka hal soo jiidayaan hore u soconine ama la yiraahdo ka kale waa xisaablaay dib iyaga reeb hawshaas way naga reeban tahay waxaynu u baahanahay maxaan ku raahday horumarkii degmada Garadag sidii loogu tartami lahaa isugu garab joogsan lahaydeen hore sii wadi lahaydeen halka waxay noogu soo gabagabootay doorashadii guddoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada Garadag runtii waxaan idinku hambalyeeynaa sagaalkiina xubnood ee ku soo baxay golaha deegaanka ee degmada Garadag sida sharafta iyo milgaha leh ee bilaa turxaanta ee aad maxaan ku idhaahday maxaan ku idhaahday isku doorateen waayo waxa inta badan lagu kala baxayay waa haldeeri in la isku hibeeyo oo la wada shaqeeyo oo labada qof ee aad doorateen aad la shaqaystaan oo dhinacyada la iswada haysto macnaha la istaageero dhinacyada la haystada si kalena way noqotaayo hay'ad dhaqaaqina way noqotaa xag horumarka maxaan ku dhadaa la iskarab galo la isku wada shaqeeyo ayaynu insha Allah isugu dardaaraynaa dhamaantiin nimo wada mas'uuliyiinatihiin waxa loo baahan yahay hadana in la iskarabsado lagu midoobo midnimada iyo horumarka la iska ilaaliyo meesha maxaan ku idhaahday dib u dhac ka dhaco golihii deegaankii hore oo hambalyeynaya meel bay wax soo gaarsiiyeen hadday ku sii jiraan iyo haddii ay hadheenba waanu hambalyeynayna meel bay soo gaadhay taladu maamulkuuna waa qori isku dhiib qofba halkuu joogo waxa la rabaa in hore uga sii dhaqaajiyo hore uga sii qaado kuwii hore waxbaa lagu xasuusanayaa kuwa maanta joogana wixii lagu xasuusan lahaa